iyagoo daawanaya kiis dil ah oo lagu soo bandhigay wararka. Hooyadii ayaa si lama filaan ah su'aal u weydiisay wiilkeeda, mar kale maa qof soo dishay? Wejiga wiilka si degdeg ah ayuu isu bedelay. waxay u muuqatay in hooyadiis horay wax walba u ogaatay oo ay u soo laabatay, laakiin si dhaqso ah ayuu isu dejiyey maxaa yeelay tani ma ahayn markii ugu horreysay ee hooyadiis ogaato dilalkiisa. markii uu 16 sano jir ahaa, isaga iyo wiilka darawalka waxay kufsadeen oo dileen gabar 8 sano jir ah iyadoo ay caawisay hooyadiis oo ah xildhibaanad. isaga waxaa laga dhigay markhaati, halka wiilka darawalka loo diray xabsi isagoo keligiis dusha ka qaatay dembiga. hooyadiis ayaa markaas ogaatay run kale oo naxdin leh. 국민사용 투표가 다 되실까? 엄마. haddii aadan fahmin aday ku taala. waxay soo baxday in wiilkeedu yahay Dogface Judge oo ah wejiga ayga ee cadaalada qofka qarsoon ee internetka ku abaabula codbixinta xukunka dilka. xildhibaanada aad ayay u yaabtay maadaama ay iyadu isku dayaysay inay xakamayso codbixinta dilka ee shacabka, sababtoo ah taageerada wejiga ayga ee cadaalada waxay ka badatay xitaa taageerada madaxweynaha. waxay qorshaynaysay in taageeradaas ay ku noqoto madaxweyne, laakiin hadda waxay ogaatay in qofkaas uu yahay wiilkeeda. laakiin waxa aysan ogeyn ayaa ah in aqoonsiga dhabta ah ee wiilkeeda dhowaan la ogaan doono. dhowr maalmood ka hor, Anna waxay ogaatay sir. markhaatiga ugu horreeyay ee kiiskii kufsiga ee 8 sano ka hor wuxuu ahaa macalinka walaasheed Jackna wuxuu ahaa wiilka xildhibaanada. markii walaasheed huruday, Anna si qarsoodi ah ayay u qaadatay telefoonkeeda, waxayna ka heshay emailka Jack. waxaa ka sii muhiimsan, waxay ka heshay sawirro badan oo muujinaya in intii lagu jiray codbixintii labaad ee online-ka, Jack heshiisyo la galay 2 arday. dhaqankiisa goobta dembiga ayaa Anna ka shakiyey. markaas Anna waxay tagtay internet cafe, waxayna qorshaysay inay jabsato kombiyuutarka Jack iyadoo adeegsanaysa emailkiisa. laakiin markii ay bilowday jabsi, kombiyuutarka Jack ayaa digniin bixiyey. Jack si degdeg ah ayuu u ogaaday, laakiin halkii uu xanaaqi lahaa wuxuu noqday mid faraxsan, sababtoo ah firewalka qaali ah ee uu iibsaday ayaa shaqeeyay. si dhaqso ah ayuu u joojiyey jabsigii Anna way xanaaq, laakiin tani waxay ka sii kordhisay shakigeed. sidee ayuu macallin caadi ah u yeelan karaa nidaam amni oo heer sare ah? xitaa booliisku ma lahaan nidaamkan oo kale. tani waxay caddaysay in Jack uusan ahayn qof caadi ah, maadaama aysan kombiyuutarkiisa jabsan karin. Anna waxay go'aansatay inay daba gasho Jack.